السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada walaalayaal channelka maansheeye insha allahu tacaala maanta waxaan idin hayaa qiso aad iyo aad u cajiiba qisadanna waxay inoo tilmaamaysaa sida ay nolosha adduunyadu bilaa qiimo u tahay oo haddii aad weligaaba intaad nooshahay ku dadaashood shaqayso wax midhodhale ka keeni maysid waxa keliya tee ku raacaya maalinta qiyaamuhuna waa camalkeeda adduunyada shaqaysatay iyo cibaadadii aad ilaahay ugu dhowaatay xaggiisa haddaba qisadeena haddaynu iska gudagalno asxaabi ka mid ah asxaabtii nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa wuxuu inoo soo gudbiyey qiso uu ka akhriyey kutubtii hore ama bugaagtii hore ee ahlulkitaabka waxaanu idhaahday beri waxaa jiri jiray nin taajir ah oo daalim ah oo taajirnimadana xaggii ugu sarraysay ka gaadhay maalin maalmaha ka mid a ayuu ciidamadiisii iyo askartiisii u yeedhay waxaanu ku idhaahday dharka la xidho dharka ugu quruxda badan la ii keena iyaguna dharkiibay u dooneen haddaba mar waloo dhar loo keenaba wuxuu idhahdaa waa maxay waxaanad ii keenteen waa maxay waxaanad ii soo qaadeen dharka qurux badan baan u baahan yahay keena ilaa iyo markii ugu dambaysay uu cajabiyey dhar aad u qurux badnaa oo uu xidhay oo uu ku labistay intaa kadibna wuxuu idhaahday daabad amba wax la koro waxa ugu fiicanii keena mar waloo daabad loo keeno sidii horeo kale ayuu idhahda waa maxay daabadan idii keentay mid ka qurux badan baan rabaa mid ka fiican baan rabaa ilaa iyo markii dambe uu arkay amba uu helay daabad aan inaba caadi ahayn oo qurux iyo waxaan kuwi xoog iyo jamaal iyo wax walba isku darsatay intaa kadibna intuu dharkiisii quruxda badnaa soo xidhay daabadiisii fiicneedna uu soo kaxaystay ayuu isagoo dharkii ugu quruxda badnaa iyo daabadii ugu fiicneed wakhtigaa wataa ayuu magaaladii soo maray isagoo ciidankiisa hogaaminaya markaasi dadkii adduunyada jeclaa idhaahdeen iyaga oo la dhacsan xoolahan uu ilaahay siiyey allah allayaana siiya anaga xoolahaasoo kale haddaba in yar kadib ninkii taajirka ahaa ee daalimka ahaa ee ay dadkoo dhan ka baqanayeen waxa dariiqa u sii istaagay nin yar oo miskiin ah oo uu faqri badan ka muuqdo markaasuu ninkii taajirka ah ku idhaahday waryaahe iska eg dariiqa isaguna wuxuu ku idhi may wallaahi kama dhaqaaqaya bartaydan markaasuu haddana ninkii taajirka ahaa iyo daalimka ahaa ee ay dadkoo dhan ka wada baqanayeen ku idhaahday waar hooggaagay ka dhaqaaq dariiqa ninkii yaraaye miskiinka ahana wuxuu ku idhaahday may dan baan kaa leeyahay dantayda maanta ii fuli ninkii taajirka ahaa ee daalimka ahana markuu arkay siduu ninkan u soo taagan yahay ayuu ku idhahday bal waayahe sheega dantaada maxaan kuu qabtaa wuxuu ku idhahday may soo deg horta arrinku waa sir labadeena inaga dhexeeye ninkii taajirkaana markaasuu ku idhahday waar hooggaagii maxaad ku hadlaysaa ninkii miskiinkaana wuxuu ku idhahday waxba ee soo deg haddaba ninkii markuu sidaa u soo degay ayuu ku idhahday soo dhowo welibana markuu soo dhowaadayna intuu dhegta afka u saaray buu ku idhahday miyaadii garatay haddaba ninkii taajirkaana wuxuu ku idhahday may kuma garanayo markaasuu ku idhahday ninkii faqiirka ahaa anaa malakulmawt anuu waxaan ahay malakumawtkaagii miyay ku anfacayaan iminka qasrigaagii iyo hantidaadii iyo wixii aad ciidama haysatayba ninkiina intuu wejigiisu dhiin cas noqday oo ay gacmihiisuna gargariireen ayuu ku idhaahday isagoo ooyaya hal saacaduun isu malakumawdkii baa weydiiye ku idhahday maxaad ku falaysaa isaguna wuxuu ku idhahday waxaan rabaa inaan ku noqdo ciyaalkaygii iyo hantidaydii oo aan soo macasalaameeyo dadkaanaan xuquuqdooda siiyo oon ilaahay u noqdan u toobad keeno malakumawdkiina wuxuu ku idhahday laakiin aniga ilaahay taasi muu amrin markaasuu ruuxdii ka qabtay ninkiina sidii qori la sii daayey oo kale markaasuu dhulka ugu dhacay isla wakhtigaasna waxaa malakumawdka ugu qorna inuu nafta ka qabto nin kaloo ay ninkan isku tuulo ahaayeen oo ay isku magaalaba ahaayeen laakiin ninkan labaad wuxuu ahaa nin saalix ah oo taqi ah oo ilaahay ka cabsanaya intuu gurigiisii ka soo baxay oo uu ka yimaaday ayuu ku sii socday musallaha amba masaajidka si uu ilaahay ugu soo cibaadaysto waxaanuu dhexda kula kulmay malakumawdkii baa salaamay isaguna salaantii uu ka celiyey markaasuu ku idhahday miyaadii garatay ninkiina wuxuu ku idhahday may kuma garanayo malakumawdkii baa ku idhahday ninkanna sidii ninkii horeo kale anaa malakulmawt markaasuu ninkii farxay baleeg farqiga u dhexeeya labada nin ninkii horena markii hore lagu idhahday anaa malakulmawt wuu baqay oo jireedhaca qabatay halkuu ninkanna ka farxay man axabba liqaa'a allaahi axabba allaahu liqaa'ah qofka jeclaada la kulanka ilaahay ilaahayna la kulankiisa uu jeclaadaa haddaba baleeg farqiga u dhexeeya labadaa nin dadka qaar waxaa jira markuu malakumawdku u yimaado farxa oo bushaaraysta waayo ma jirto wax macaasi ah oo ku hadhay si uu uga toobad keeno oo uu ka wada toobad keeno wixii oo dhan camal kaloo saayidoo uu sameeyana ma garanayo shantiisa salaadood si fiican buu tukadaa bini'aadanka ilaahayna way kala nabad galeen dadka ammaanooyinkoogii wuu u celiyey cid dayn kule ma jirto waa qof diyaarsan oo ilaahay la kulankiisa sugaya haddaba ninkii markii uu ku idhahday malakumawdku waxaan ahay malakumawdkii wuxuu ku idhaahday ahlan bika wa marxaban malakumawdkii baa ninkan su-aal weydiinaya oo ku leh sidee baad jeceshahay inaad nafta kaaga qabto ninkiina wuxuu ku idhahday oo miyaad awooddaa inaad samayso arrinkaas malakumawdkiina wuxuu ku idhahday haa oo ilaahay baa faray inaan ku sugo oo aan nafta kaaga qaado sidaad jeceshahay ninkiina wuxuu ku idhahday haddaba waayahay salaad baan gelayaye markaad aragtay inaan sujuuday nafta iga qabo malakumawdkiina wuu sugay
markuu ninkii sujuuday ayuu naftii ka qabtay. Haddaba walaalayaal, qisadan maanta waxaynu ka faa'iidaynaa in aan adduunyada laysku hadlayn, waayo gebigaygu waa maalmo kooban. maalmaha kooban waxa wanaagsan inaad uga faa'iidaysato cibaadada iyo sidaad maalinta aakhiro booskaad geli lahayd aad u wanaajiso. nebi maxamedna wuxuu leeyahay kullu bni aadama khataa wa khayru lkhataa'iin attawaabuun. bini aadan kastaa khalad buu galaa, kuwa khaladka galana waxa ugu wanaagsan oo ugu fiican dadka ka soo noqda ee ilaahay u toobad keena. walaalayaal, horta gebigeennuba bini aadan bayn nahay, bini aadanna qalad lagama waayo, laakiin waxa ugu wanaagsan inaynu qaladkeena ka toobad keenno oo aynu ilaahay u soo noqonno. taasaanaynu ku aflaxaynaa adduun iyo aakhiraba. wasala allaahuma calaa sayidina wanabiyina muxamedin calayhi afdal asalaatu waatami الtasliim. subxaanaka allaahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa ant astaqfiruka waatuubu ilayk.